kulanti wanaagsan daawadayaal halkan waa warbaahinta Soomaali Vlogger Media ku soo dhawaada warkii ugu dambeeyay ee gudaha dalka qodobada ugu waaweyn ee aad daawan doontaan waxa kamid ah farmaajo oo kabaha la dulmaray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kuna tilmaamay shakhsi aan waxba ka aqoon siyaasadda gudaha iyo dibadda aan soo qaadan doonaa qodobada kale waxa kamid ah wasiir madaxana furan oo si kulul uga jawaabay eedeymaha farmaajo ee madaxweyne Xasan Sheekh kuna tilmaamay mid doonaya olole doorasho oo aflagaado ku dhisan qodobada kale aad daawan doontaan waxa kamid ah madaxweynaha maamulka Puntland oo digniin culus u diray dowladda Soomaaliya kuna dhawaaqay in wixii ka dambeeyay 15 May aysan jiri doonin dowlad federaal ah qodobadan iyo qodobada kale nagu soo kordhay ayaa daawada qaybtan ku daawan doontaa haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saara channelkeena haddii aad horena la joogtaan aad ku maasan tahay like muuqaalka sina share kare waa maasan tahay aan ku bilaabo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa weerar qaawan waxa uu ku qaaday madaxweynaha Soomaaliya ee haatan Xasan Sheekh Maxamuud oo uu ku tilmaamay shakhsi aan waxba ka aqoon siyaasadda gudaha iyo tan dibadda farmaajo oo bixiyay wareysi cusub ayaa madaxweyne Xasan Sheekh ku tilmaamay qof aan sumcad lahayn isagoo ku eedeeyay in maalinba mid uu la joogo laba dal oo is haya hadda marba maalin mid la joogto sida aan hadda aragno marka sumcad ma lihid hadda sumcad lahayn xaqiiqatan dalkaaga sumcad ma yeelanayo ama ma lahanayo ayuu yiri madaxweyne farmaajo ayaa hadalkiisa sii raaciyay Xasan Sheekh siyaasad arrimo dibadeed waxba kama yaqaano siyaasad arrimo gudaheedna waxba kama yaqaan oo labaduba waa isaga mid ayuu yiri madaxweyne Farmaajo dhinaca kale Farmaajo ayaa isku sifeeyay shakhsi ay ku weyntahay wadaniyadu isagoo ku faanay inuu dhisay ciidanka xoogga dalka oo uu sheegay in markii hore ee Xasan Sheekh uu kala wareegayay uu baaba ahaa sida uu hadal ku dhigay Xasan Sheekh waxaan ka dhaxlay ciidan aan moral lahayn oo mushaar aan qaadan oo la leeyahay $100 qaata amaba ka taga balse aniga waxa uu uga dhaxlay ciidan dhisan ayuu yiri madaxweyne hore Farmaajo waxbadalkiisii raaciyay hal sanduuq oo rasaas ah igama degin balse anigu waxaan uga degay baqaaro hub ah Farmaajo oo soo hadal qaaday weerarkii lagu qaaday madaxweynayaashii hore ee dalka oo madaxweyne Xasan Sheekh uu ku jiro intii uu xafiiska joogay ayaa sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh uu sheegay in taliyii hore ee ciidanka xoogga dalka General Odawa Yusuf Raage uu hogaaminayay weerarkaasi isagoona isweydiiyay hadiiba General Odawa uu halis kariyay naftooda sababta uu madaxweyne Xasan Sheekh uu xilka dib ugu magacaabay taliyahaasi wuxuu sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh uu isagu mucaarad isku filan uu yahay isagoo tusaale u soo qaatay iska horimaadka hadaladiisa shalay iyo sidoo kale kuwa maanta ceebka weyn miyaa jirto qof weyn oo mas'uul ah da'daas ah sheegtana in uu PhD uu yahay haddana shalay iyo maanta la iska horkeenayo waxaad isleedahay isagaaba mucaarad isugu filan ee maxaad ku mucaaradaysaa ayuu yiri madaxweyne Farmaajo wareysi uu bixinayay waa weerarkii ugu adkaa ee Farmaajo uu ku qaado madaxweyne Xasan Sheekh tan iyo markii uu dalka uu dib ugu soo laabtay 13 bishii November aynu soo dhaafnay Farmaajo ayaa ka soo horjeeda hanaanka ay dowladda federaalka u maamulayso doorashooyinka dalka dhinaca kale wasiir madaxana furan ayaa si kulul uga jawaabay eedeymaha Farmaajo ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaana uu ku tilmaamay mid doonaya olole doorasho oo aflagaado ku dhisan wasiirka deegaanka iyo gaadiidka badda xukuumadda Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac wasiir jaamac loo yaqaan ayaa si adag uga falceliyay hadallo ka soo yeeray madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib wareysi uu bixiyay oo uu si toos ah ugu weeraray hoggaanka hadda jira wasiir jaamac ayaa qoraal dheer oo uu soo dhigay bartiisa Facebook ku difaacay madaxweynaha hadda talada haya ee Xasan Sheekh Maxamuud isagoo si kulul uga jawaabay eedeymaha Farmaajo ee la xiriira khibrada siyaasadeed iyo xaaladii dalka uu ka tagay sanadkii 2017 Farmaajo ayaa wareysigiisa ku sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh uusan wax badan ka aqoon siyaasadda gudaha iyo tan dibadda isagoo intaas ku daray in markii uu xilka kala wareegay sanadkii 2017 aan laga degin xitaa hal baqaar oo hub ah sidoo kale waxa uu tilmaamay in dowladii ka horeysay ay ka tageen ciidamo aan nidaamsaneyn isla markaana aan qaadan mushaar joogto ah hase yeeshee wasiir jaamac ayaa hadaladaasi ku tilmaamay kuwa aan sal iyo raad doona lahayn isla markaana qayb ka ah olole siyaasadeed oo horay u bilowday waxa uu yiri duqii Farmaajo
ma waxa uu doonayaa inuu doorasho uu ku galo caay iyo aflagaato haddii uu tartan siyaasadeed doonayo ha keeno dood wax ku ool ah waraysi kale la yeesho oo uu shacabka ku qanciyo ayuu qoraalkiisa ku yiri wasiir madaxana furan wasiirka ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyay in dowladda hadda jirtaahi ay ku guuleysatay dib u dhiska hay'adaha amniga bixinta mushaaraadka ciidamada iyo xoojinta xiriirka dibadda taasoo uu sheegay inay meesha ka saartay caqabadihii hore ee jiray wasiir jaamac oo marar badan loo arko shakhsiga ugu firfircoon ee ka jawaaba dhaliilaha mucaaradka ayaa hadalkan ku soo beegay xilli uu cirka isku sii shareerayo loolanka siyaasadeed ee dalka gaar ahaan iyadoo la dareemayo ifafaalo muujinaya diyaargarowga doorashooyinka haatan ka soconaya dalka ugu dambeyntii daawade madaxweynaha maamulka Puntland ayaa digniin culus u diray dowladda Soomaaliya kuna dhawaaqay in wixii ka dambeeya 15 May aysan jiri doonin dowlad federaal ah oo dalka ka talisa madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa si kulul uga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka isagoo sheegay hadal si weyn u gilgilay fagaaraha siyaasadda Soomaaliya Dani oo khudbad ka jeedinayay magaalada Badhan ayaa si toos ah uga digay in haddii aan la gaarin heshiis siyaasadeed oo la isku waafaqsan yahay ka hor 15 May 2026 aysan jiri doonin dowlad federaal ah oo shaqaynaysa laga bilaabo 15 May haddii xal Soomaaliyeed la isla ogol yahay la waayo dowlad federaal ah oo jirta ma jiri doonto ayuu yiri madaxweyne Dani isagoo intaas ku daray in Puntland ay markaasi kadib si madax bannaan u raaci doonto danaheeda gaarka ah hadalkan ayaa imaanaya xilli ay sii kordhayaan khilaafaadka ku saabsan hanaanka doorashooyinka xiriirka u dhaxeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo sidoo kale mustaqbalka nidaamka dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale dalkaba Dani ayaa sidoo kale fariin u diray shacabka Soomaaliyeed isagoo sheegay in go'aanka kama dambaysta ah uu gacantooda ku jiro isla markaana Puntland ay sugayso aragtidooda ku aadan jihada siyaasadeed ee dalka hadalkan ka soo yeeray Saciid Dani waxa uu muujinayaa heerka uu gaarsiisan yahay khilaafka siyaasadeed ee Soomaaliya iyadoo ay muuqato in haddii aan la helin is-afgarad degdeg ah dalka uu geli karayo marxalad cusub oo xasaasi ah oo saameyn ku yeelan karta jiritaanka dowladnimada Soomaaliya gudahaan daawadayaal wanaagsan qodobada ugu waaweynaa ee gudaha dalka haddii aad nala soo gaartay ilaa dhabaadka muuqaalka like saar sin share kare haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo subscribe saar channelkeena mahadsanid